أماني هذا ونابنا جمودا معال هذا مقديجي ويفتي شيء أقول هذا مقديجي ويفتي شيء أقول أقنت إني أفعتهاي معال أنا قيري وقادة تديو أقنت إني أفعتهاي أنا قيري وقادة تديو وحيل الدكتور فعايشة معال أقنت إلي استهاي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونايسن مركلة يا برنامج كترتك على بورك جناسية أرداد جامعات جمهورية سومالان أو ستة صاوغ صعدا وربعين كل دون محلية جمهورية سومالان وح برنامج على بورك جناسية ستة سومال قليل بنك عالمية بريمير بانك وح على بورك يفكر اسكالها بروفيسور مبارك برايمر وح برنامج كترتك على بورك كتر تمية جامعات كل دون وكمية جامعات جمهورية سومالان هبين كسدا وذلوا حنديسو قد بنا غيب كمية ama xalqad kamid ah tartamayaasha waxaan soo dhaweyn doonaa xubnaha guddiga kala duwan iyo garsoorka barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga waxaan ugu horeyn u yeeri doonaa gudoomiyaha tartanka halabuurka ganacsiga Professor Mubaarak Ibrahim waxa kale oo aan jecelahay inaan u yeero xubnaha guddiga dhinaca garsoorka oo ugu horeyn doono Cabdi Yuusuf Ar waxa kale oo isna u yeeri doona Ismaaciil Meecaad oo kamid ah guddiga garsoorka xubinta afraad ee u yeeri doona waxay noqon doontaa Cabdiraxmaan Buraale oo kamid ah xubnaha guddiga waxa kale oo u yeeri doona xubinta u dambeysay ee guddiga dhinaca garsoorka ee barnaamijka tartanka halabuurka Marwo Sucaad Yuusuf Odowa haddaba aan idin kala baro guddida kala saaraysa ardayda ku tartamaysa barnaamijka hal abuurka ganacsiga waa kuma Mubaarak Ibrahim Ar waa hindisaha iyo madaxa barnaamijka hal abuurka ganacsiga ee ardayda jaamacadaha Somaliland kaas oo uu qabtay markii labaad isagoo uu maalgeliyay Premium Bank Mubaarak waa gudoomiyaha jaamacadda Badar horena waxa uu ahaan jiray gudoomiye ku-xigeenkii hore ee jaamacadda Hargeysa Mubaarak waxa uu sii daayay barnaamijka loo yaqaan macalinka TV-ga oo inta badan ka hadla arrimaha horumarka bulshada waa kuma Cabdi Yuusuf Ar waxa uu waxbarashada jaamacadeed ka diyaariyay maamulka iyo maareynta ganacsiga Cabdi waxa uu ganacsiga bilaabay isagoo 10 jir ah waxa uu sanadkii 1999 shaqo ka bilaabay shirkadda MSH oo ka gaadhay madaxa iibka ee shirkadda MSH Cabdi Yuusuf Ar waxa uu noqday madaxa iibka ee suuqeynta iyo shirkadda Bitage oo ay ku tartameen in ka badan 50 qof Cabdi Yuusuf Ar waxa uu shaqo ka bilaabay shirkadda Sagal Jet oo markaasi bilow ahayd isla markaana ay ka shaqeyn jireen 4 qof oo kaliya sanadkii 2007 ilaa iminka Cabdi waa maamulaha guud ee shirkadda Sagal Jet oo ay hadda ka shaqeeyaan in ka badan 250 qof isla markaana laama ku leh dhammaan 6 gobol ee Somaliland Wajale Djibouti iyo magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka waa kuma Ismaaciil Aadan Meecaad
ismaaciil aadan meecaad waxa uu haystaa master degree oo uu ka qaatay jaamacad ku taalla magaalada London isagoo ku takhasusay cilmiga horumarinta aadamaha kadibna wuxuu isla London ka aasaasay company bixiya tababarada kadib ismaaciil waxa uu ku soo guriyay noqday dalka iyadoo uu aasaasay Boorama Job Center dhinaca kale ismaaciil meecaad waxa uu si weyn ugu jiraa ganacsiyo kala duwan waxa uu ka tirsan yahay maamulka sare ee shirkadda meecaad group sidoo kale waxa uu maareeyaa shirkad dhisme oo mashaariic kala duwan wada ismaaciil waxa uu sidoo kale dalka keenay shirkad ajnabiya waa tuma Sucaad Yuusuf Odowa waxay haysataa master degree oo ay ka qaadatay jaamacadda University of London iyadoo ka qaadatay horumarinta dhaqaalaha Sucaad waxay ahayd agaasimihii howlgelinta ee shirkadda Hon Money Transfer Sucaad waxay noqotay gudoomiyaha ururka haweenka ganacsatada ah waxaanay hadda tahay xubin ka tirsan boardka Sucaad waxa ay leedahay hodheelka caanka ee Laalays iyo ganacsiyo kale Sucaad waa xubin firfircoon oo dhaqaaqda horumarinta dumarka waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu master degree ka qaatay jaamacadda Open University ee dalka Malaysia isagoo ku takhasusay maamulka Cabdiraxmaan waxa uu in ka badan 6 sano ka shaqeynayay hay'adda caalamiga ah ee BSI isagoo manaasib waaweyn ka soo qabtay sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda Handicap International Cabdiraxmaan waa bare culumta maamulka ka dhiga jaamacadaha dalka Cabdiraxmaan waa mulkiilaha iyo maamulaha shirkadda Horn of Africa taas oo caan ku ah tababarada shirkadaha iyo maamulayaasha sidoo kale Cabdiraxmaan waa ganacsad bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan jeclahay ardayda madasha ku sugan habeenkan caawa tartanka ka qayb galayeen aan weydiino dareenkooda ku aadan bal tartankan halaburka ganacsiga iyo waxyaabaha ay dareemeen habeenkan caawa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Habboon Xuseen Muuse la yiraahdaa waxaan ka socdaa jaamacadda Abaarso waxaan kaga qayb galayaa some event management oo ah yani qabanqaabada xafladaha dareenkaygu maanta waa highway yani uu sareeyaa waxaan doonayaa insha Allah inaan guuleysto waa tahay wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tartanka halaburka ganacsiga ardayda jaamacadda Soomaaliland oo maalgelinaya bangiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaan aad ugu mahadnaqnaa xubnaha madasha fadhiya howlkan tartanka uu ka dhacayo iyo sidoo kale guddiga kala saarista barnaamijkan waqtiga qaaliga ay siiyeen waxaan soo dhaweynayaa ardayd ka socota jaamacadda Abaarso ee magaalada Hargeysa waa Habboon Xuseen Muuse Habboon ku soo dhawow Habboon waxay ku tartamaysaa barnaamij la magac baxay ama mashruuc la magac baxay Some Events waxaan jeclahay in bulshada la wadaagto bulshada oo iftiimiso macnihiisa Habboon assalaamu calaykum calaykum salaam rahmatullahi barnaamij noocan oo kala hore ma uga qayb gashay may waa first time KGN barnaamijka yaa kugu weynay ma kaliya mise arday kale kula wadaagaysay oo group aad wadahaydeen arday kale jirta laba weeyaan waa inan iyo gabadh inan oo kula joogan hoolka waa tahay Habboon waan ku soo dhaweynaa barnaamijka waxaa 3 daqiiqo inaad bulshada la wadaagto barnaamijka Some Events inaad u micnayso qaabka uu dhacayo barnaamijka kadibna guddiga halkan fadhida aad dhibciisa aad u kasban lahayd barnaamijka ka hawlgasho waa tahay aad bilaabi kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim business cake waxa la yiraahdaa some event waxay u soo gaabsan tahay Soomaali iyo event xafladihiya haddaan yar qeexo shirkadda waxay qabanaysaa adeeg bay qabanaysaa adeegaas soo mid cusuba wuu jiraa laakiin bar bay qabtaan kuwa qabtaa adeeg cusub marka waxa weeye waxaan u qabanaynaa xafladaha sida shirkadahan u qabanaynaa waxaan u qabanaynaa xafladaha waxaan u qabanaynaa shirkadaha jaamacadaha aroosyada meheradaha dhalashooyinka waxa soo dhan u qabanna waxa qabanaysa arday dhalinyar ba qabanaysa hal abuur leh karti leh way aragnimo leh oo xitaa businesska waan soo tijaabinay iminka bishan afraad oo dhan waan ku dhex jirnay waan sameynay dhowr event sidaan u shaqeynayna waxa weeyaan inaan ka duwanaano siday dadku u qabtaan just waa decoration kaliya tay xafladahan iminka kuwan decoration ka qabtaa waa decoration kaliya ta anaku inaan ka duwanaanaan doona oo bilow ilaa dhamaad han qabano waxaan macaamiisheed waxa weeyaan shirkadaha jaamacadaha dadka aroosyada dhiganaya meherada dhalashooyinka saan hore ugu soo xusay xiriirka macaamiishada naga dhaxeynaya waa ku fiican buu noqonaya waayo waxaan sameynaa waxaan tixgelinaynaa dadka macaamiishada dalabkooda oo anaga xitaa u qabanana adeegyada bilaasha sida inaan sawiraan yaro bilaasha ka qaadno iyo inaan talooyin siino waxaanu kaga duwanahay shirkadaha kale anaku xaflad just decoration kiyata kuma koobnin waxaanu ku koobanahay inaanu ku abaabulno inaanu ku qurxino inaanu yaani A to Z han ku qabano xafladaadii oo dhamay waxyaabaha aan u baahanahay waxa weeyaan 4 shaqaale iyo hal ilaalo
waayo waxaan doonaa inaanu xeebaha ku qabanno inaan banaanada ku qabanno buuraha ku qabanno markaasi markii dadkii aan dibadda u saarno qof noo ilaaliyaan u baahannahay oo dee ilaalo iyo 4 shaqaale oo naga caawiyo decorationkii iyo dadkii maamulidoodii kuraas baa ka mid ah miisas baa ka mid ah sameecadaha ka mid ah mashiinadii leedhka kamaradihii waxaasoo dhan baa ka mid ah qaabkan u gaadhsiinayno waxa weeyaan bulshadeeda inaan social media-da han isticmaalno waayo kaasaa dee dadkii hay wada arkayaan oo ka wada aga kama baahnay qarashaadkooda waxa isku tagay in total macal shaqaalaha mushaarkooda 11200 $12,200 oo dollar ayay isku noqonaysaa qarashaadka intaan doonano xaddiga aanu sameeyno waxa weeyaan horta bisha horeysa inaan 4 event qabanaan doonaa 4 event wax aduu dee faa'iido kama helano waayo qarashaadkayga badan ku bixinna laakiin bisha labaad waxaan doonaa ilaa 1200 inaan gaarsiino insha Allah faa'iidadeeda waa ka iyo inaan ka sii badino waayo eventkiin way badanay samarkii baa soo socda marka waxaan doonaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad xafladiina si had be a guest at your event kuna waa anako shaqaynana weyn waayo waan tijaabinaydu ku yiri waa kan waa anakiyo shaqaynno shaqadii wadna tii daahfurkeekii iyo xaflado kaloona laga soo dalbaday waan dhameeyay waa taad baad maasatay haboon waxaan la ka qabo laakiin sababad ka gaarsiisay 3 daqiiqo bulshada la wadaagtay sawir qurux badan runtii soo bandhigtay waxaan eegi doonaa xubnaha guddida bal presentation aad samaysay iyo barnaamijkaaga qaabkaad uga hadashay qiimeynta ay ku siiyeen ban codkood ku eegi doonaa waxaan ka bilaabi doonaa Ismaaciil Macaad 40 baan siyaa ban 40 Abdi Sfar 40 Sucad 25 Cabdiraxmaan Buraale 35 waa tahay haboon wadalka qiimeynta qaybtii hore inta hadashay waxaad geli doontaa wajigii labaad ee barnaamijka miyaa lagu difaacay barnaamijka inay kula difaacay magaca walaal maxamed waxaad diyaar u tahay barnaamijka aad difaacdo halka waxaa fadhida ganacsato khibrad badan leh marka ganacsiga la soo qaadan lacag wax la isugu geeyo runtii muddo badan ka soo shaqeynaa meemka ku dhex jira su'aalaha la weydiin doonaa si fara badan uga jawaabi doontaan waxaan si toos ah daawadeel ugu wareejin doonaa xubnaha guddida in bal wixii su'aalaha ay weydiiyaan kooxda Som Events ee soo bandhigay qaabka xafladaha loo qabtiyo barnaamijyada munaasabadaha iyo xubnaha guddida oo kala baxaya Som Event haboon khadar iyo Aisha waa ku mahadsantiin fikrad fiican baa la timaadeen ilaahayna ha idin fududeeyo waxaan idin weydiin lahaa waxaad tiraahdeen waxaan bedelaynaa xafladii lagu qaban jiray hoteelada ayaan meelo kale u bedelaynaa halkana waxaad qorateen kuraas iyo loudspeakerro iyo qalab ma arkayo meeshii wax lagu qabanayay marka miyaa karaysanaysaan ma tenda ma bacba ma buulba maxaad samaynaysaan bismillahi raxmaani raxiim waxaan 12,200 baan sheegay budgetkayga inta igu kacaysa 12,200 anaga iska ururinana dhexdeena oo waayo waa businesskii jiray laakiin 10,000 baan doonaynaa insha Allah inaan u qaybino stage-kii oo kale taandooyinkii waayo meelo cadceeda dhici karta inaan ku qabanno xafladaha su'aashu waxay tahay halkan waxa ku qoran kuraas iyo taybulo iyo mashiino iyo waxaas calashaan meeshii ifadka lagu qabanayay ma waa karaysanaysaan mise waa dhisaysaan haddaad dhisaysaan halkay ka muuqataa haddaad karaysanaysaan maxaa ku karaysanaysaan muxuusan noqonayaa waxaad ifadka ku qabanaysaan aad baad mahadsantahay waxay noqonaysaa horta qalabka xagga nagu qor waxa weeyaan qalabkaan u isticmaalano markaan rabno inaan events ku qabano meelaha banaanka ama outdoorska oo kuwaasoo noqonaya beeraha buuraha xeebaha intaaba aan doonayna inaan ku qabano eventska markaan leenahay waan bedelaynaa qaabka u dhacan waxa weeye aroos ha noqoto xaflad jaamacad qabsanaysa ha noqoto xaflad shirkad qabsanaysa ha noqoto intaba waxay ka dhacaan hoteelo marka waxaan rabnaa in qaabkaa bedelno meelo furan oo yacni dadku leedho ay qaadan karaan fresh air ay heli karaan inaynu ka dhigno insha allah marka qalabkan waxaan u isticmaalnaa markaan doonno inaan dibadda ku isticmaalno ama dibadda aan ugu sameyno macmiisheeda marka qofka noo yimaada macmiilkii doonaya inuu eventka qabsado isagaa garanay meesha ku qabsanayo hadduu doonayo inuu buur ku qabsado hadduu doonayo inuu gurigiisa ku qabsado meel walba uu jeclaysto waxaan rabnaa inaan anagu qalabkayga dhammaystiran inaan u qaadno hadduu hotel doonayo in hotelka xidhiidh gaaraan u leenahay inaan insha allah isna aan u soo korey inaan hawshiisa u dhammayn hal aan ku sii daro adiga su-aashii baan anigaa tusaale ahaan idinka soo dalbaday xaflad qalinjabineed xeebtaan doonayaa batalaale ma kuraastu ma ay dhegdhegaysaan xeebta qarkeeda maxaa bacadka iga daboolayaa sidee u dhacaysaa
waa runta kulley cadcad baa jirisa saan ku sheegay waxaanan ku yidhi 10 kun waxaan ugu baahanahay tandooyin baan doonay inaan iibsado stage baan doonay inaan ku iibsado waayo already businesskayga wuu jiraaba yacnihii igama joogsanayo markaasaa darteed baan tandooyinkaasaan ugu baahannahay lacagtan investmentkan ha ugu baahannahay maydaan soo qoran leh maanu soo qorin waayo budgetku waa yar buuq badan yahay markaa madax taasad daba dhigay dhib ma laha insha allah oo mahadsantihiin habboon iyo khadar iyo tiimka waxaan isweydiinayaa presentationkaaga waxaa ku jirta habboonay inaad already samayseen 4 xafladood may no waa per month waxaan samaynaynaa 4 xafladood sawiradan tustay ma waxaad samayseen baan soo aqoon doontaa may waa waxaan sameynay weeyaan taana waa hubaal dadkii joogay waan u yeedhi lahayn laakiin waxaan ma yeersi sorry وعادي باشا waxa ka muuqda waxan waa wax naga daba weeyaan way ku tusayeen wax naga daba yahay so that's why waxan excited wahay صح way and kule businesska qeyradu waa qayb kamid ah laakiin gabigiisu qeyra ma wada sama markana qaawinaynu u baahanahay waxaan kaliya rabaa waxaad sameyseen ilaa hadda waa sawirkan saahada ku weydiiyay waana sameyseen marka ma hal xafladood baad sameyseen mise ka badan tahay way ka badan tahay imisaad qiyaastii sameyseen ilaa hadda taayadii daafurkii iyo laba kale saddexdaas sameeyay tiina gaari gudhi labadaad sameyseen maxaa idinku baxay maxaad ka faa'iideen horta wallahi markaad business bilaabisid ugu horeysid bilaabisid markaaba kuma bilaabisidina kharash iyo waxa had gelisiyo dadkii had ku tiraado ilaa waxa ay si had ku tiraado intaasan ka raba waayo adigii baad suuq raadinay markii horeba soo maaha waxaan sameynay taw horeysa bilaash baan ku qabanay takalna 50 baan ka yani faa'iido noo ahaa $50 baad ka faa'iido ha okay imsa dadkii ka qaadeen ma ala qofkiiba ha ama cidaad yani hadaad qof idinka dalbadanay imsa isaga ka qaadeen hada ala qof uu charge gareynaysa names waxaan rabaa inaan fahmo kaliya costigii iyo $50 sidoo ku yimid waxay ku timi waxaan ugu qabanay qolada meel ay ku qabanayeen hidiyo dhaqan hidda academy baa la yiraahdaa marka waxaan u sameynay wuxuu decoration oo qura marka decoration maana charge gareynin dadka laakiin intaan decoration gareynin baanu charge gareynin $50 marka aabka naga haysanay oo sameeysanay intii hore marka waan u sharaxnay bay kahay maadsantiin masleedihiin alaabtan aad iibsanaysaan meel had dhigataan oo storage wada baahantiin baabuur qaadan wada baahantiin dhabaantii waan haysanaa storage nagu filan oo midkayba haya meel weyn oo store aan dhiga karnaa laata meed kareysanaysaa mise waa bilaash baabuurna online gaariguna bilaash yes waan haysanaa baabuur okay maxaa kaga duwan tihiin competitorskii hore u jiray maadaama qolooyin badan oo dhikoorka ka shaqeeya ay jiraan isla mar ahaanta waa ayo competitorskiina u waaweyn ma garan kartaan cidda waajahaysaan suuqa waa su'aal wanaagsan competitorskii ugu weyn haddaan ku horeeyo waxa weeyaan waa cusubin horta hawshan magaalada wadankeena way ku cusub tahay oo waxa jirta company hore ugu shaqeeyay Yagleel Event Management ka mid tahay laakiin waxa weeyaan iyagu waxay qabtaan adeeg gaar ah adeegaas inta badan isku noqda decoration qura laakiin anagu waxaan doonaynaa inaanu adeegyo kale dheeraad aan bixino ay ka mid yihiin planningkii managementkii and decorationkii saddexdaa baan qofkii u raacno annagoo qofkii xorriyad siinayna amaan siinayno inuu maaragtay goobtu doono wuxuu ku qabsan karo annagoo saddexdaaba qabanana eventkiina A to Z annagu aanu maamulno oo qofkii contract wixii aan kula galino eventkii intii kaga baxay intaan budgetkii u sheegno kadib nagu wareejiyo hawsha annaga aan u dhameeyno sidoo kale waxa jirta xaflado mar walba dhaca oo qabsadaan hay'adaha oo qabsadaan shirkadaha intaba ma jiraan dad u maamulo u gaar iyagu baa maamusho kaasoo stress badan ka qaada waxaan rabnaa hawshaas oo dhan inaan bedelno annagu aan gaar u noqono si ay nolol saxiiraan opportunity wanaagsan ay noqonayso insha Allah horta waad mahadsantihiin waxaad ka muuqdaa passion badan laakiin weli ma fahmin niche marketkiina yani waxaan idinku dooranayo dan kuwa kale marka aan idinku doorbidi doono weli ma fahmin waxaad tidhi wax gaaray sameeyaan saan oge wax gaara ma sameeyaan event managementka way sameeyaan competitorskiinu decorationka way sameeyaan locationska sheegaysaan waa la sameeyaa marka waxaan doonayaa ma priceka ma wayna weli ma fahmin thank you horta waa run way jiraan laakiin ma badna annagu horta waxaan kaga duwanahay waxa weeyaan waxaan nahay entrepreneurs
oo jaamacadda waxaan kaga baxnay faculty entrepreneurska wixii waxaan u leenahay khibrad iyagoo wax dhici karta markay wadaan inay ka joogsan laakiin anagu wax naga go'an wey aqoonna u leenahay inaan wixii socodsiin karno businesskana suuqaanu gelin karno marketing aan ku samayn karno waa talabaad ee waxaan rabnaa qaab innovative way inaanu siino dadkii oo adeegyo bilaash ugu darno sidoo kale xafladaha arooska iyagu way qaabeeyaan way sameeyaan laakiin anagu waxaan doonaynaa inaanu xataa soo celin traditional weddingkii dhici jiray in meeshii su'aalo la isku weydiiyo waqtigu ka yaraado waqtigii marka dhacaya la yeesho maaragtay dood maxaan ku dhahdaa xafifan adu yani ay meeshii yeelato oo arooskan inta badan heesuu baxayaan waxyaabahaas oo dhan haddii aroos noqoto eventku aanu ka bedelno marka waxaan rabnaa qaab service yar oo ka duwan kuwa ay bixiyaan inaanu bixino insha allah adiga su'aalan ku yar weydiiyo wali intaad xaflad qabsatay inta lagu yimid ma lagu weydiiyay feedback maxaa yani saan kuugu qabanay xafladda wali ma lagu yiri no saaban anigu feedback gaan doonayaa si aan ku raali geliyo waayo waxaan ku tixgelinayaa dalabkaaga سادرتيد بان كجا سرينا كوا كله. واي. سؤال كلام دوري أنا دويدي. إن واحد ترى هذا واحد كوكبنا هنا حفلة ميل أوبنا. وحنقولنا هاي ضد كالصومالي وضد هذا يقار فضولين هو حداد ميل إسكفر فريستان ضد با إسكا إيمانيا. وقار با يسوع عسومة يو ما ركتي ومع الحفلة الرفشة هي مرة كقار كود. marka maqaar xoog waaweyn sidii baararka kareysanaysan mise askar ba sidee amniga u ilaalinaysan amniga waxaan ilaalinaysan waan ku sheegay waxaan qabsananaa security baan qabsananaa imise qofka ilaa adu qof aan horta imika ku soo xusnay meesha laakiin waxay ku xidhan tahay inta qof ee soo gal imika intiina fadhida qof kaliya tuwidi ka adag yahay just passport baan tiibana سؤال شلوات كسر عليه حويان عبد بايد ويديه وكوي كومبيتيتور سكيل ما ايدنتيفاي غراين كرتان كوما waxa way jiraan laakiin way yirihiin waxa kamid ah iyaga event management iftin management sidoo kale waxa competitorska soo gali kara hoteelada oo de aan rabno inaanu ka bedelno maartay shaxdan ah mar walba in hotel lagu qabsado kuwa laftigooda anaga xidhiir gaar ah la leeyahay eventska dadka markay doonaan ugu qabanna haddana dhinac competitors noqonayaan waxaan rabnaa inaanu ka bedelno waxaan soo noqnoqday ee ah mar walba hotelka lagu qabto iyaguna laftigooda competitors bana noqonayaan wax cabsi mid ka haysaa hoteelada oo kale haddii ay dareemaan inaad ka guurinayso dadkii ka qaadaysaan inay iyaga laftoodu ay mushkiladeedu ku sameeyaan mararka qaarkood waa run way dhici kartaa laakiin hoteelada waan u tagnay businesskayga horta 3 bilood ku dhawaad waanu sii wadnay hawsha waanu events waanu qabanay hoteelada waan la tagnay qaar baan soo dhaweeyay qaar baa waliba noo sheegay inay discount noo sameeyaan discount imika macmiisha xagga fadhida markay u tagaan aanu sameeyeen anaga ay noo sameeyeen cost of waxaan u balan qaadnay inaan macmiil badan ku soo xidhi doono qofka maanta noo yimaada event doonay inuu qabsado inaanu tusno eventka ku qabsan lahaa hotelku doono ka dooran karo marka isna marketing baa u noqonaysaa inaan sameeyno eventka uu dhaco saas leegna in competitors ay noqon karaan waa tahay aad iyo aad baad mahadsantihiin haboon iyo maxamed oo difaacaya barnaamijka som events oo habeenkan caawa waxaad qaadateen 10 daqiiqo ahayd inaad difaacdaan barnaamijkeena su'aalihiin inaad si toban uga jawaabtaan waxaa kaloo jecelayn daawadayaashan la socodsiiya barnaamijka ku xidhan ee warbaahinta TV-da kala socda in barnaamijku uu marayo 3 marxaladood marka koowaad oo ah 3 daqiiqo in qofku uu wixii presentation ama uu hayo fikirkiisa inuu kala wadaago bulshada kadibna guddigu ay qiimeyso sidoo kalena mar labaad haddana wareeg labaad loo siiyo 10 daqiiqo oo su'aalo furan oo xubnaha guddiga ay weydiinayaan kadibna wixii ka jawaabo haddana marka la guddiga ay ku qiimeynayaan jawaabtiisa habka isku difaacay in wareeg labaad uu saasi ka gudbo wareegga saddexaadna wuxuu noqon doonaa dood furan oo dhex mari doonto xubnaha shanta ee tartamaya barnaamijka oo mid walba uu sheegi doono waxa barnaamijkiisu kaga fiicay barnaamijyada kale iyo sidoo kale barnaamijyada kale daldalooyinka ka soo baxay ee barnaamijkiisu uu kaga horumarsan yahay taasi ka doodi doonaan waxaan mar kale ku noqon doonaa xubnaha guddiga ah in qiimeyntii labaad haddaba aad gashaan maadaama su'aalihii aad si fiican uga jawaabteen aadna aad isku difaacdeen waxaan ku wareejinayaa xubnaha guddida yaa qiimeyntii koowaad iyo nusinatalow haddaan ku bilaabo anugu 5 baan ugu dari lahaa 5 baad ku dartay inta waa Ismaaciil Maacad Cabdiraxmaan Buraale maxaad ku dartay adu 5 baan ugu daray anna adna 5 kalaad ku dartay Cabdi Yusufar anu sideedan u daay sideedaad ku daysay Sucaad Armiya sideedan ku daay waa tahay Sucaad ku daysay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan idin rajaynayaa guul idinka iyo anaguba daawadayaal waqtigan waxaynu ku wada nasan doonaa qadar kooban oo xaysiisa ka
kusoo dhawo Premier Bank maxaan ka caawiyaa walaal waxaan u baahanahay inaad ii furto akoon gaar ah Mastercard iyo raacid fadlan okay walaal waan ku furaya waxa kale oo u baahanahay akoon ganacsi waxa kale oo u baahanahay mobile banking iyo internet banking ganacsiga waxaan u rabaa BOS fadlan buuxi foomkan wal ma heli karaa maalgelin ganacsi ma heli karaa maalgelin shakhsi lacagteena waxaan rabaa inaad ii dhigto akoonkayga bangiga geeska Afrika ugu weyn ee ku dhaqma shariicada islaamku waxa uu ku hayaa akoon shakhsi ah mid ganacsi adeega mobile banking internet banking BOS maalgelinta lacagaha dibadaha loo diro iyo waxyaabo kale oo badan kusoo dhawo mudane inankaasi talabaadku dalbadan in la haddaba ha moogaanina booqo xarunta kuugu dhow kana furo akoon hadda daawadayaal habeenkan caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynaa qaybtan waa inoo iyo tartamaha xiga ee habeen dambe haddii eebbaha awoodda laynoogu sumo inta ka horeysa waxaan ku dhaafinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu